Soomaaliya waxaa xalay taashka quruxda madaxa loo saaray gabadha ugu quruxda badan sida la sheegay oo magaceeda la yiraahdo Iqra Ahmed. Miss Soomaaliya ayaa tartankani la yiraahdo oo inkasta oo aanu ku jirin dhaqanka Soomaalida oo laga soo dheegtay ummado shisheeye haddana dad badan oo Soomaali ahi baraha bulshada falcelin kaga sameeyeen. Gabadhani ayaa Soomaaliya ku matali doonta tartanada quruxda hablaha ee adduunka. Haddaba maxaad kala socotaa tartanada quruxda ee habluhu galaan? Ilaa 4 tartan oo quruxda ah ayay warbaahinta adduunka boonboonisa kuwaas oo la kala yiraahdo Miss Universe, Miss World, Miss International iyo Miss Earth. tartanadan ayaa waxaa gala hablo lagu soo jarrabay dalalkooda wareegga koowaadba kuwaas oo ah dhaxyar dhuubo meedhan isla markaana qurux iyo dharar la tiicaya. taariikh ahaan dalalka galbeedka oo bilaabay hablaha oo macshar qurux kaga tartama bilowgiiba dabageliso yaryar ay hablaha u geliyeen inkasta oo kol dambe qaarkood ay ka yaqiiqsoodeen ficiladooda qarriban. waxaase la yaab lahayd markii Xaliimo Aadan oo ahayd Soomaaliyeed ku dhalatay xeryaha qaxoontiga Kakuma oo dalandoolka waayuhu dhigay Minnesota waddanka Mareykanka ay la soo gashay madaxas turan tartankii quruxda hablaha ee gobolkaasi America ku yaala ee Miss Minnesota taas oo maalmo dhan haysatay warbaahinta adduunka.